gudida abaaraha heer qaran ayaa maanta deeq raashin soo gaarsiiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Saraar. Deeqdan raashinka ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 2500 oo qoys oo ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaana deeqdan saaka si rasmi ah ugu kala diray deegaamada baadiyaha gudida abaaraha gobolka Saraar. Ugu horreyn waxaa goobta lagu kala diray deeqdan raashinka hadallo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha gudida abaaraha gobolka Saraar Khaliif Ismaaciil Salabaan iyo xildhibaan Abubakar Shida Cali oo ka mid ah gudida abaaraha ee gobolka Saraar. Waxayna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen deeqdan iyo waliba xaaladaha culus ee abaaraha ay ka tagan gobolka Saraar. halkan waxaa lagu qaybinayaa raashinkii ay gudiga abaaraha iyo xukuumaddu gobolkan ugu soo deeqday oo runtii qaybtii caymeed raashinkaas oo guud ahaan marka hore dhan 2500 oo qoys looguna talagalay 5000 oo qoys oo isu saara. tira ahaan runtii markaanu gobolkan u qaybinay raashinkan halkii qoys waxa ku soo aaday 4 qoys baa ku soo aaday. halka waad ka garanaysaan gaabka tirada dadka abaartu haleeshay ee gobolkan ku nool ee miiga runtii ku il daran dhinaca Saraareedna waxa lagu qaybinayaa 1100 qoys baa lagu qaybinayaa. runtii waxa gacan siiyay walaasabka gobolka ciidamada booliiska oo uqaasha barsaab xigeenka oo runtii si hagar la'aan nolol shaqeeyay. waxaan xukuumadda u sheegnay gudida abaaraha qoyska waxa ugu tala gasheen 2 qoys annaguna markaa dadka tiro koobnay wuxuu u gaaray 4 qoys oo waliba qaar maagaw yihiin. waxaanu gudida abaaraha u sheegaynaa heer qaran inaanu ahayn ku talagalka gobolkan ka qabtaan tirada haysataan inaanu ahayn. halka 2 qoys ugu tala gashay annagu 4 baan u qaybinay. waxa maagoobay intaa in leeg xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa gudida abaaraha waxa ka codsanaynaa ku talagalkaasi mid sax maaha. way wana shaqeeyeen gudida abaaraha waa shaqeynaysaa dadka dadweynaha reer Saraareed waxa mushkulad waxa ku waxay sud biyaha marka ay cabayaan iyo raashinkaba waa inay isgaarsiiyaan. ilaahay ka baqeen wixii soo gaaray ee xukuumaddu soo gaarsitay ee gudida abaaraha soo gaarsay waa ka gawaarida laga dajin maayo. waa arki doontaan gawaarida iyadoo taama baan faaruq garanayna. geesta kale qaar ka mid ah uqaashiga waxgaradka gobolka Saraar ayaa gudida abaaraha gobolka Saraar ka gudoomay deeqdan loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen. waxaan u sheegaynaa gudida abaaraha ee guud way soo gaadheen gobolka caawimadii ugu tala gasheen oo soo rarteen u taal la qaybinayaan hortubanahay. gudida abaaraha ee gobolkuna ilaahun baa og waxa ay qabaan hawsha ay qabaan ilaahun baa og. ilaahba ka saameyn marnaya ta guud iyo ta gobolkaba wixii ay tareen. waxaan leeyahay hay'adaha waxaan ka codsanaynaa inay gobolka yimaadaan kulli qaar yimaado way joogaan wixii maqan gobolka ka maqan in hay'adu ka hawl galaan gobolka ayaanu u baahan. ilaahay baa mahad leh. waxaa kaloo mahad leh gudida abaaraha ee raashinkan soo gaarsiiyay hadday mid heer qaran tahay hadday mid heer degmada hadday mid reer gobol tahayba waanay ku mahadsan yihiin. annana haddaanu nahay odayaasha goobaha ama xidhmaanada raashinka waanu ka gudoonay waa taa naloo qaybinayo waa taa nala siinaa. ugu dambeyntiina kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Jaamac Maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan raashinka si degdeg ah u gaarsiin doonaan dadka ku nool baadiyaha iyo qorfaha ee ay sida baan u saameysay abaartu. halka waxa ka socota shaqo aad u adag ba ka socota oo maanta aan ugu qaybinayno dadkii reer miyiga ee gobolkan Saraar u dhashay ku dhaqnaa raashin loogu qaybinayo halkan waa dadka reer miyiga. dad magaalo jooga ama meel biyela jooga oo aanu raashin siinayna maanta ma jiro. waxaan u qaybinaynaa oo kaliya waa dadkii qorfaha joogay oo aanu soo tira koobnay oo aanan gobolkan Saraar wixii ku nool reer miyiga hal qoys ka tagin ayaanu maanta raashinkii u qaybinaynaa. annagu kulay hadafka iyagu waa inaanu reer miyiga raashin gaarsiino weeyaan. maanta gudida abaaruhu aad bay u shaqeynayaan xil badan bay saareen. Salabaan cilmi Saciid Salabaan Kiiko fogaan araga xorta Star TV Aynaba.